labaatankii bisha 11aad waxaa farxad inoo ah sharafna inoo ah in maalmahan booqasho noogu yimid wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh oo ka kooban labada aqal ee dawladda aqoon-yahano iyo siyaasiyiin kale oo madax bannaan madaxweynuhu booqashadiisa waxaan aad iyo aad dhiirigelin ugu tahay in dadka Soomaaliyeed uu dhex maro maadaama xafiisku ka maqnaa muddo 2 sano kadibna uu fiiriyo halkii xaaladda joogtay xilligii uu ka tegey talana uu siiyo dadka Soomaaliyeed si ay hore ugu sii socdaan kama marno mustaqbalkana inuu talo ku darsado in siyaasadaha imaan doono iyo Soomaaliya halkay ugu guuri doonta 4.5 nidaamkii ahaa oo muddo dheer dawladnimada Soomaaliya lagu soo dhisay saldhig u ahaa taa oo macnaheedu yahay in hadda la higsanayo ama maskaxda lagu hayo in nidaam xisbiye ah loo guuro oo ummadoo dhan ay wadaagi karto qabiilkana lagaga guuro habkaas kulankan aqoon-yahanada reer Jubbaland iyo madaxweynaha aqoontu macnaheedu waxa weeyaan qofkii sidaan oo kala ah oo astaanta qaranka Soomaaliyeed soo noqday madaxweynaha ahaa horena nin aqoon-yahan oo jaamacadaha wax ka dhiga ahaa in ay ardadu ka faa'iido way aragnimadiisa iyo taladiisa ayagana waa aqoon-yahanada waxay maskaxda ku hayaan oo su'aalaha ay weydiiyaan waa lecture ama waa aqoon la kala qaadanayo weeye marka maanta munaasabadeennan waa madaxweynaha khudbad ka soo jeediyo la hadla aqoon-yahanada reer Jubbaland ee Soomaaliyeed ee halkan fadhiyo iyo ayagoo su'aalo weydiiyo halkaasna ay noqoto cashir taariikhi ah oo aan kala faa'iidno marka mudane madaxweyne ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كجدال حن آدي أقوم ماد علينا يا هجانك يا مسؤولين تي ملاحظة دولة قبلتك جبلان يددوينها جبلان جودهان سودوينتي يا مرحبينتي يا مرتجلينتي أنيجا يا وفدجيجا دلوجو سمي هل كان مقالة كسمايو عاصمة كميل جاركة دولة قبلتك جبلان وحن لنا آدي أيا سنتهين سيدا صومالي نمذا له قدر انت له سودوين تبلارن لأنه لو سودويي انت انجوغني مقالة كسمايو وان كما هاد علينينا انت كدب سفر كينا سيدا عن مرار بدنا هوري وشاقي باوحو اها سفر حوقو قال نمو deegaanadii iyo dalka qaybihiisa kala duwan guud ahaan in aan xogogaal u noqono dadka Soomaaliyeed soo dhageysano waxa ay jecel yihiin waxa ay qabsanayaan dadaalada ay ku jiraan waxa ay tabanayaan dhammaan inaan ka soo dhageysano wixii talaa iyo ra'yiga iyo waaya aragnimadu ayna tusaysan annaguna aan ku beerino si hore loogu sii socdo marka xoogaalnimo raadiskaas ayaa safarkeenu aad iyo aad ugu weynaa intii aan joognaa halkan magaalada Kismaayo runtii wax badan oo xog ah oo xoogaalnimo ah ayaa nala wadaagay wax badan baan ogaanay horumarka iyo wanaaga iyo maxaan ku yiraahdaa nidaamka dawliga ah ee ka socda halkanaan ogaanay markaan barbar dhigno 2 sano iyo bar ka hor qiyaastii markii iigu dambeysay halkan iyo maanta farqi aad iyo aad u weyn ayaa ka muuqda dadka iyo deegaanka intaba dadku nolosha inay soo kabanaysaa ka muuqata deegaankuna inuu dib u dhismayo kabanaya ka muuqda marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynayaa dadka reer Jubbaland guud ahaan gaar ahaanna magaalada dadka ku nool iyo mas'uuliyiintoodaba oo maxaan ku yiraahdaa muujiyay intii karaankooda in hoggaanka ummadda ay hagaajiyaan
magaalada Kismaayo shalay iyo daraad waxyaabahan ku aragnay waxyaaba ididiilo weyn la waay waxaan dadka u sheegaynay aan xusuusinaynay ilaa shalay aan la hadalnay Jubbaland laba jeer ayaa waaye aragnimo iyo khibrad ay ugu filan tahay dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka ku nool gaar ahaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah mid waxay ahayd mid la soo dhaafay oo dhismihii Jubbaland iyo sida ay ku dhisantay iyo caqabadihii jiray iyo culaysadii iyo dhibaatooyinka la soo maray waxay waaye aragnimo badan siisay maamuladii ka dambeeyay iyada ee sameysmay marka laga yimaado Puntland waxay ahayday maamulkii ugu horeeyay ee sameysma ayay ahayd saddex maamul ayaa ka dambeysay oo sameysantay saddexdaas maamul waxa ay ahaayeen waaye aragnimadii Jubbaland dhismaheedii laga helay kuwa in badan oo kamid ay saaciday dhismaheedii marka taa waxay ahayday waaye aragnimo laga soo faa'iideystay waaye aragnimada labaad waxa ay tahay maanta sida Jubbaland ay u socoto ay u nooshahay ay u dhaqmayso oo ah qodobka ugu muhiimsan deganaanshiyaha siyaasadeed ee maamulkan iyo dawladdan dhexdeeda ka jira deganaanshiyaha siyaasadeed oo waxa yarka ee la gaaray ee horumarka ah sababta ugu weyn u ah haddii meesha aanay deganaanshiyo siyaasadeed ka jirin wax horumar oo la gaari kara ma laha kaalmo caalami aan la helayn maalgashi gudaha oo dadka Soomaaliyeed inay dhiiradaan oo xoolahooda ay muxuu ahay ku dhisaan dalka yaan la helaynin laana qofkii uu baqaya waatan la isku qaylinayo golayaashii is haystaan madaxdii la haysto iyadu ay dadkii maxaan ku iraahdaa haysato war meeshan wax ka soo socda lababa garanaye bal aan muxuu ahay u kaadin inta yiraahdo qof walba gadaal u dagaya laakiin marka wixii ay isku toosan yihiin maamulkii iyo madaxdii iyo jawigii uu toosan yahay oo hagaagsan yahay qof walba waa ku dhiiranaya in oo wixii uu haysto uu la yimaado meesha dadka ajnabiga ee Soomaalida kaalmeeyo way ku dhiiranayaan inay la soo haliilaan wixii wanaaga iyo kaalmo ah oo ay u heli karaan dalka iyo deegaanka marka deganaanshiyaha siyaasadeed aad iyo aad ayuu muhiim u yahay marka waxa cusub ee maanta aan leeyahay maamulo badan oo kala jira dalka inay ugaga daysadaan waa deganaanshiyaha siyaasadeed isqabqabsasho la'aanta isku buuqid la'aanta indhaha dadka in ay wax fiican arkaan dhagaha dadkana ay wax fiican maqlaan waxay aasaas u tahay mustaqbalka sida loo qaabaynayo iyo niyadda wanaagsan iyo waxqabadka haddii qof shakisan oo talow boorsadaada alaabtaada bal ku sii xirxirnaato meeshaan in la kala qaxaaba laga yaabaaye isdhahayo waxa ma horumarinayo mana fikirayo xooggiisa iyo xoolihiisa oo dhanna ma keenayo meesha laakiin qofku markuu dago alaabtiisa meel walba dhigto oo ku seexda caawa kalsooni bari war xoogaaga yaraaye bangiga ii yeelay halkaanaan bakhaar yar uga furanayaaye ii keen yay noqonaysaa marka horta taas waa khibradda cusub oo waaye aragnimada leh oo aan leeyahay maamul goboleedyada dalka ka jiraahay maanta waa in ay uga daysadaan maamulka Jubbaland marka mar kale waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa guud ahaan dadka reer Jubbaland gaar ahaan muxuu ahaay mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo aqoon-yahanada Jubbaland ee aan leeyahay wacyigelintaas iyo baraarujintaas in badan oo ka mid ah waa qayb bay ku leeyihiin marka intaa ka imaado safarkayga wuxuu ku salaysnaa ballanqaadkii maalintii dalka aan ku soo noqdo aan ballan qaado ahayday inaan dadka Soomaaliyeed soo wada booqanayo meel kastoo ay joogaan iyo inaan soo dhageysanayo iyo inaan wixii muxuu ahay waaye aragnimo aan leenahay aan la wadaagayno qodobkayga saddexaad waxaan rabaa dadka reer Jubbaland inaan uga mahad celiyo taageeradii iyo garab istaagidii ay siiyeen dawladdii aniga aan muxuu ahay hoggaankeeda hayay muddadii ay jirtay dabcan taageeradaasi shakhsi ma ahayn dawladnimada Soomaaliya ayaa la taageerayay welina waa ku sii dhiiri gelinayaa dawladnimada mar walba in la taageero oo tiinna marka aad qabsataan midda dadka ka dhaxaysana
aad waqti badan iyo xoog badan iyo xoolo badan aad muxuu ahay gaarsiisaan maanta deegaankan wax badan ayaa u qabsooma wax badanna waa u dhiman yihiin markaan leeyahay marka deegaankan deganaanshiyo siyaasadeed iyo maxaan ku idhaha deganaanshiyaa ka jirto macnaheedu ma aha mushkila inaanay jirin maaha nolosha bini aadamkay qayb ka tahay tabashaa jiri karto maxaan ku idhahday qof baa wax tirsan kara qoraa wax tirsan karta laakiin waxa fiican ee halkan ka jira waxay tahay dulqaad qofkii wax tabanaya iyo qoladii wax tabanaysa xataa inay dul qaadato wakti ay bixiso lagu hagaajiyo waxa ay tabanaysa ay sida quman ee fiican ee walaaltinimada iyo wanaagga ku jira ay u bandhigto loona dhegaysto oo laga waxeeyo marka waxa ugu muhiimsan waa middaa ee macnaheedu in la kala ra'yi duwanaadaahi nolosha sunnada noloshay ka mid tahay dadku isku ra'yi ma noqon karaan waa la kala ra'yi duwanaanaya laakiin kala ra'yi duwanaanshadu ceeb ma aha kala ra'yi duwanaanshadu ceeb ma ahane kala ra'yi duwanaanshada sida loo daaweeyo oo loo xalliyo oo looga hadlo waayo waxaan wanaagga ku jiro kala duwanaanshadu marna in lagu jabo dhiig daato la isdilo ayay keeni kartaa marna in kalsooni dheeri ah iyo isku sii kalsoonaan iyo wada shaqayn iyo walaaltinimo ay ka timaado ayay keeni kartaa marka waxaan leeyahay waxa meesha ka jira waa intaas intaa kadib dalka Soomaaliya waxa uu doortay nidaamka la yiraahdo federalismka nidaamka federaalka waa nidaam adduunyada ka jira dalal badan ayaa ku dhaqma waliba kuwa adduunyada ugu horumarsan ugu dhaqaale badan ugu tiknoolajiyad sareeya ayaa isticmaala nidaamkan federalismka oo ku dhaqma oo u shaqeeya marka in nidaamka federalismka ay Soomaalidu ay dooratay waanad garanaysaan waa ogtihiin taariikhda dalku intaanu xor noqon oo gumaysigii joogay dad Soomaaliyeed ayaa ku hadaaqayay oo ku qaylinayay xorriyadda markaan qaadano waxaan u baahanaa inaan nidaamka federaalka qaadano maalintaas dadaa qabay ra'yigaas intii ka sugaysana dadaa qabay markii dhibaatadu hadda dhacdayna waa sii xoogaysto intiiba laga yaabo dadkii diidanaa federaalka in ay arkeen inuu xal u yahay nidaamka federaalka saddex mabda ayuu ku dhisan yahay wax dawladda dhexe u gaar ah oo aan lagu farageli karin wax dawlad goboleedka u gaar ah oo aan lagu farageli karin iyo wax labadaba ka dhaxeeya oo in laga wada tashado in hay-ado muxuu ahaay la wada leeyahay oo laga wada shaqaynayo oo go'aan qaadashadooda la wada leeyahay loo samaysto oo laga wada shaqeey ay tahay saddexdaas heer haddii inta la qeexo qawaaniintooda iyo nidaamkooda la dejiyo nidaamka federalismka waa nidaamka xukunka ee isku fiican intaa kadib federaalku waxa kale ku sii fiican yahay dawlad waliba waxay dawladda kale ka fiican tahay inta dawladnimada iyo xukunka uu dadku u dhow yahay haddii dawladnimada iyo xukunka dadka aanay u dhoweyn oo ay ka durugsan yihiin waa dawladdii iyo dadkii waa kala go'ayaan laakiin lakabyada kala sarreeya ee dawladnimadu haddii ay siday u kala sarreeyaan dadweynaha ugu dhow yihiin oo ay ka warqabaan dadka iyo waxa ay ku nool yihiin iyo noloshooda iyo waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin dawladdu ay og tahay markaas dadku inay dawladnimada jeclaadaan inay dawladnimada aaminaan ku kalsoonaadaan la shaqeeyaan dawladnimada ayaa ka dhalanay marka sida ugu sahlan ee maanta dadka xukunka dawladnimada loogu dhoweyn karana waa nidaamkan haddii aan dawlad dhexe xoog badan aan dhisayna aan dhahno caasimadda joogto magaalada muqdisho goormay inta muqdisho dawladdaasi ka soo dhaqaaqdo ay gaaraysaa Soomaaliya geeska gees waa garan karnaa inay gaarto waa dhib badan tahay haddiiba ay gaartana waqti dheer iyo cost qiimi badan ayaa ku baxaya si ay Soomaaliya dhan u gaarto laakiin nidaamkan federaalka maanta waa meel kasta oo dalka ka mid ah dawladnimadii way gaartay yes wax badanaa dhiman maamuladu ma xoogaysan caqabado badanaa hortaagan ducfi badanaa jiro oo maxaan ku idhahdaa in laga gudbo ay tahay shalayba meeshii la jooga maanta lama jooga intaasoo dhanna waa laga gudbayaa waana muxuu hore usii soconaya marka nidaamka federaalka
soomaaliya oo dhammaa dooratay meel inta isugu tagtay go-aan ku soo gaartay annaga naga hor annagu markaan imaanaynay nidaamka federaalka dalka waa loo go-aan loo gaaray oo ahaa dastuurkan uu ku qornaa annaguna waxaan u istaagnay inaan dhaqan gelino oo dhulka buugu ku qornaayo buugga inta ka soo baxo inuu dalka iyo degaanada uu soo gaaro ayaan muxuu ahay u istaagnay oo aan ka shaqaynay marka nidaamka federaalka ah waa nidaamkaas masaalixdaas badan leh khilaafaadku mar walba waa sheegaya khilaafku waa ra'yi kala duwanaansho mar walba waa jiraya laakiin mar walba inaan nidaam aan uga shaqayno oon ku xallino khilaafaadkaas sida si ugu fiican yaan u baahannahay maamulada dhexdoodana waa ka jiraa oo maamul iyo maamul kale waa ka dhex jiraa maamul jira dhexdiisana waa ka jiraa marka inaan mar walba laakiin aan u taagannahay oon xallino markaan mid xallino mid kalaa soo baxaya biri mid kalaa imaanaya maalinta kale mid kalaa jiraya laakiin mar walba in loo taagan yahay waayo waxa aad iyo aad muhiim ku ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hormuud ka ahaa ama odo ka ahaa dhismihii maamulada oo aad garanaysaan dhammaan dhibaatooyinkii laga soo maray culaysyadii laga soo maray maamulkan jubbalanda ugu horreeyey waad garanaysaan meesha uu soo maray dalka dibaddiisa ka soo bilowday gudihiisa yimiday wixii dhacay iska hor imaadyadii isdiididdii kala shakigii istuhmiddii wixii dhacay oo dhan xoogogaala loo ahaa laakiin waxaasoo dhan waxaan kaga soo gudubnay wada hadal wada tashi iyo niyad samaan annaguna waxaa dhab naga ahayday dalka inuu maamulka jubbaland inuu dhismo waan rabnay go-aanay naga ahayd dadka iyo mas-uuliyiinta reer jubbalandna waa rabeen madowgii meesha soo galayna xalkii ugu fiicnaayoo looga gaaro waxay ahayday midkaas muxuu ahaay wada hadalka iyo wada xaajoodka iyo isqancinta iyo isdhegaysiga ku salaysnaa ayuu ahaa markii dambana xidhiirka iyo wanaagga iyo iskaashiga iyo taageerada aan ka mahad celinayo maanta ayaa ka soo baxday marka halkaas in laga wado waa soomaaliya 1960kii ayay xorriyad qaadatay isticmaalka ay ka xorowday 1990kii na 1990kiina burburkii dowladnimada ayaa dhacay 30 sano markaan dowlad ahayn kadib ayaa burburku dhacay 30 sano 91 laga soo bilaabo ilaa maantana waa 28 sano 2020 oo aan rajaynayno dalka inay doorasho ka dhacdo oo dowladda hadda jirta mandatekeeda uu ku egyahayna waa 30 sano kale 30 sano oo aan dowlad ahayn oo caalamkuna aqoonsanaa xuduudaheenna cir iyo bad iyo dhul ay noo xiraayeen oo dowladdeennu dowlad xoog lahoo dowladaha afrika ugu xoogga badan ka mid ahayd lanaga heybadaysanayaan soo marray 30 sano kale oo duruufo gaara aan ku jirnayna waa soo marnay waa ku jirnaa mar dagaal sokeeye ahayd mar dowlado kumeel gaara ahayd mar muxuu ahay dowladda kumeel gaarnimadii laga baxayo federalismkii la dhaqan geliyey mar aan diyaar garow kale kusii jirno waa 30 sano kale aqoon-yahanka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta waxa laga rabo waxay tahay 30 sano ee soo socota haddii alla yidhaah soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa maanta ma sawiri karnaa 2050 taariikhdu markay gaarto oo dad badanoo meeshaan fadhiyo dhallinyaro ah ay yihiin marka ay maxaanku idhahdaa ugu xoog badan yihiin uguna tala wanaagsan yihiin ma sii qiyaasi karnaa soomaaliyada noocee ah ayaan rabnaa inaan gaarno 1940meeyadii niman dhallinyaraha oo soomaali ah oo 15 ah oo aqoon aan nagu dhammayn shahaadooyinka aan haysanno aanan haysanin oo xurriyadda iyo soomaalinimada maanta aan haysanno aanan haysanin oo dadka ay soomaaliyadu ka soo dhex baxeen dhaqaalaha maanta ay haystaan aan haysanin ayaa inta istaagay dadka waxay u sawireen fogaan arag ah soomaaliyada noocaas ah oo saa u taallo ayaan rabnaa taariikhda saasa inaan gaarnay mustaqbalka xor ah dimuqraadi ah karaamo iyo sharaf iyo haybad leh dowladaha adduunka ka jira la tartamo oo ku dhex jira
noocaas oo gumaysi iyo isticmaar iyo bahdalayn iyo maxaan ku rahaa karaamo jabin meesha ay ka baxdo dadkii way ku qanciyeen waa loo istaagay waa la xaqiijiyey soomaaliya xor ah in la helo maalintii soomaalida xorteed la helay ayay ahayd haddana in dadka loo sii sawiro fogaan arag kale la yidhaahdo 10 20 30 50 sano soo socota sidaanaan rabnaa waddadaanaan marayna dhallinyarada maalintaa fikirkaa la timiday in badan oo ka mida dowladnimadii dhalatay waxba kama qaban siyaasadna kama qaban hoggaanna kama qaban waxna kama qaban ayagoo muwaadiniin ah oo muwaadiniin weliba nolol aad u hooseyso ku nool ah ayay dalka ay joogi jireen intii aan soo gaarnay annagu aan aragnay muhiimaddoodu ma ahayn xukunka qabso adigu noqon ninka wax xukumaya adigoo hormud laakiin muhiimaddoodu waxay inay dadka ummadda u horkacaan hadafkaa ay tilmaameen sidii ay ku gaari lahayd way gaartay ummaddiina hadafkii soomaaliya xor ah ayaa timida markii dambe marka 30 sano ee hadda 2020 noo dhammaanaysa duruufaha gaarka aan ku sugannahay wakti waaye cumriga bini aadamka ku dheer 30 sano cumriga bini aadamka waa wakti ku dheer laakiin cumriga ummadaha kuma dheera 30 sano ummaduhu 100 sano iyo 10 sano ayay jirayaan marka 30 sano kuma dheera cumriga ummadaha laakiin cumriga qofka bini aadamka 30 sano wakti oo aad u qiimo badan waa annagu marka waxaan rabnaa maanta aqoon-yahankii dadkii maxaan ku idhahday fikirayey ogaalka lahaa adduunyadu siday wax u dhacayaan dadkii akrinayay oo darsayey oo arkayay oo fahmayey dadkii muqaaranada isbarbardhigga samayn karay ee wixii markaana anfacaya nooga soo dhex saari karay waa aqoon-yahanka maanta oo aan nagu yarayn weliba dhinac walba haddii ay tahay marka inaan maanta maskaxda intaan shiilo aan sawirno soomaaliyada aan rabno waana sida adduunyadu ay ku horumartay sida adduunyada wadamo badanoo maanta dhaqaalahooda aad loo kobcin aad loo ammaanayo haddaad dib u fiiriso taariikhdooda iyo muxuu ahay dowladahoodii dib a ugu noqoto waxaad arkaysaa muddo hore inay dejiyeen yacni qorshe ay ku horumarayaan ay ku gaarayaan meeshaas dadku waa isbedeli karaa laakiin qorshaha sidaas ee ummaddu ay yeelatay higsiga iyo hiraalka dheer ah lama bedeli karo berri qofkii yimaado ma bedeli karo sii xoojinayaa oo sii adkaynayaa sharaftiisa iyo karaamadiisa ku jirto inuu meel sii gaarsiiyo laakiin marka aanay jirin hiraalka iyo qorshaha iyo maxaan ku idhahdaa higsigaa fog marka aanu jirin nin walba asagoo waa dadaalaysaa isleh ayaa laga yaabaa meel soko dhow inuu wixii uu soo dhigo maanta marka dadka aqoon-yahanka ah cilmiga iyo aqoonta iyo ogaalka u saaxiibka ah waxaa laga rabaa in ay ummadda jiheeyaan oo ay u dhigaan meeshaas 30 sanaan hadda anigu iri maybe suurtagal waxaa 50 sano in qof uu ku fikiri karo oo sii leeyahay ufuq dheer oo fog uu sii yeelan karo 30 sano laga soo gaabi karaayo war 30 yaanan ka dhigina aan 10 la dhihi karaa laakiin 30 kan 10 karnaa 5 karnaa laftiisa kasii badan haddaan kasii dhignana oo aan kasii muxuu ahay waa kasii fiican tahay marka maanta taxadiga ama muxuu ahay noo yaala ummadda soomaaliyeed haddaan nahay gaar ahaan inta aqoonta sheeganaysa waa midda adeerka miyigaa fog geela ku ilaashanayo ama jiimka webiga ee aada nooga fog muxuu ahay beerta ka tabcanayo mas-uuliyaddaasi ma saara mas-uuliyaddaasi oo mas-uuliyad wadareedkaa waxay saaran tahay waa ninkii aqoon leh hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yacni horena ilaahay muxuu ahay waaba u sheegayo dadku inaanay isku mid ahayn ninka wax bartay ee wax og ama cilmi la dhigta ha ku ogaada ama khibrad iyo waayo aragnimo ha ku ogaade iyo midka aan wax ogeyn wax ogeyn maaha oo qof walba wax waa og tahay aan wax baranin ee aan wax akhrisanin ee aan wax daalacanin isku mid ma aha haddii marka labadiiba subaxa saaka inay inta soo quraacdaan nolosha caadiga ah ee muxuu ahay qofku uu
noloshiisu gaarkaa iska raadsado isku miday noqonayaan qof walba nolosha caadigaa wuu raadsana kii beer fala kii maxaan ku ihahdaa suuqa ka xamaasha kii maxaan ku ihahda dukaan furta kii meel ka shaqeeyo mishaar qaata nolosha caadigaa raadinteedii waay laakiin nolosha ummadda raadinteedu waa marxalad iyo heer ka duwan oo gabdhaha iyo wiilasha soomaaliyeed ee waxbartay laga rabo inay yimaadaan marka aan eegno markaa arrintaa baryahan waxaa kaloo ayadana jira adduunyada globalizationka ama carro edegeynta caalamka in adduunyada maanta teknolojiyada horumarka ay gaartay awgeed la yidhaahdo lagu mathaalo waaba hal tuulo dunida dhan dadka tuulo yaroo miyigaa ku taalla isla nool miyay iswar moog yihiin subax walba war ma soo nabad kacday kulli waa lays wada dhahaa inta tuulada inta ku nool caalamkii oo dhammaa maanta intaasoo kala noqday oo kumanaan kun oo kilomitirkan jira yaad saaka ma soo nabad kacda is leedihiin cod keliya isu dhimaysaan muuqaalaad isu leedihiin marka in la yidhaahdo waa tuulo caalamku waa sidaas caalamkaas noocaasa marka mucaamilaa ka dhaxeeyo dadka qaarkiis faragelinay u yaqaanaan laakiin waa mucaamilkaasi dadku isku mid maaha midna wuxuu ku raadinayaa wax dadka kale hadday dhibayaan ama hadday dulum ku yihiin ama hadday wax ku yihiin shaqo aanu ku lahayn ee tiisi inuu helo ah dadka qaarkiisna si mas-uuliyadu ku jirto ayay ku raadinayaanoo waxay leeyihiin yani masaalix isu dhiganta ama iska daba dhow labada dhinacbo ma aniga kaliga inaan maslaxaysta ma rabo aan wada maslaxaysanno nadadaa ku raadina laakiin la isdhaafi maayo la isma dhaafayo leanna masaalixdiyaa isdhex gashay tuulayntaas caalamkii oo tuulada noqdayaa keenaysa waa la isdhex galay maslaxado iyo danaa lagaa leeyahay adiguna dabcan waad leedahay annagu marka annagayna jirtaa maslaxadda midda noo wanaagsanna inaan adduunyada kala macaamilno oo maslaxaddeennu ay ku jirto midda noo daranna inaan iska celinno dhahno baltan dib noogu dhiga laakiin cidna lama macaamalayo iyo cid walba waa ka shakisanahay iyo cid walba waa ka baqayaa maanta adduunyada haddaad cid walba ka shakiso cid walba ka baqdo maslaxadda waa lagaa soo dhex raadsanayaa adigoon adiga aanan doorna ku lahayn lugna ku lahayn taaiirna aanu ku lahayn leanna masaalixda qaarkood shaksiyaaday tegey kooxa gaaray tegey degaanay tegey marka haddaan kor laga haynin oon marka hore aan loo wada adeegin ummadda oo maslaxadaha wanaagsanna aan loo jirin maslaxadaha muxuu ahaye aan wanaagsanayna aanan laga celin marka dee in lagaa dhex kaluumaysto oo maxaanku idhahdaa shaksiyaad iyo kooxo iyo degaano gaara iyo wax la dhex galgalaayo waxay noqonaysaa caadi masaalixdaas marka dhaqaalay leedahay amniyay leedahay iskaashi siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ay leedahay wax badanay leedahay adigaa lagaa rabaa marka inaad kala doorato wax ku anfacayo kan ku anfacayo ee maslaxadaada ay ku jirto oo midda ugu badan aad ka heli karto kan maanta inaad curiso oo inuu socdo oo berri aad maslaxad ka dhex arkayso berri aad laakiin maanta aad sii barbaarinayso waa laga raba soomaalidu waxay ku maahmaadaa guran ilaashadaa irmaan maala neefku markuu guran noqdo qofkii dhaqaaleeyo xanaaneeyo ilaashada yaa marka dambana oo muxuu ahay maalayo oo muxuu caano oo u yeelanaya laakiin neefku markuu guraba haddaad midna gowracdo midna suuqa geyso maalinta dambe wax ku irmaanaanaya ma jiraan marka masaalixda qaarkeed berraa loo gelayaa berri in lagu intifaaco jiilasha dambe inay maslaxadaasi ay qaataan yaa maanta loo abuurayaaye maanta bes waxa jooga inaad ku aragti noqoto oo maanta ma helayaa maya iga foge maanta kan maya iga foge inaad dhahdo maaha wixii maanta maslaxadooda ay deg deg tahayna qaado wixii maslaxadoodu ay u baahan tahay fogaan arag iyo maalgashi iyo ra'yi iyo juhdina ka shaqee marka caalamku waa sidaas sida uu maanta uu u wada dhaqmo oo u wada noolyo u wada jiro 30 sano oo annaga duruufaha gaarka aan ku sugnayna waa 30 sano caalamka oo ugu xawliga ugu dheer oo ku horumaray teknolojiyada dhaqaalaha diblomaasiyadda wax walba ay horumareen waay marka annagu inaan ka daba guclayno ka daba tagno caalamkan u baahannahay si caalamkaas aan uga daba tagno oo masaalixda iyo danahana laga leeyahay kuwa aan leenahay aan isugu miisaanno oo waxa danta noo aan qaadano waxaan danta noo ahayna aan iska celinno hal walxoon u baahannahay jiro
dawlad Soomaaliyeedan u baahannahay dawlad yani dawlad ah oo Soomaaliyeed ayaan u baahannahay dawladda Soomaaliyeed 28 sano la soo dhaafan waa jirinaynay horumar badanna dabcan waa ka soo sameeynay laakiin meeshii aan rabnay weli ma aanan gaarsiin weli ma gaarin asbaabtay u gaari lahaday yaan rabnaa marka inaan daaweyno waa waxa qofka aqoon-yahanka ah laga rabo inuu muujiyo waxa aan Jubbaland ku ammaanay ee deganaanshiyaha siyaasadeed ah ayaa dawladnimada Soomaaliyeed u baahan tahay deganaanshiyo siyaasadeed iyo isfaham siyaasadeed iyo is-aqbal iyo is-ogolaasho annagu aan is-aqbalno yaa dawladnimadu u baahan tahay dalku waa dalkii dadku waa dadkii intii horeba kana tiro badan kana tayo badan markaad qof aad u soo qaado haddana kuwii naga tirada yaraa ee awooyaasheen ee naga muxuu ahay tayada yaraa ee aqoonta iyo waxa aan nagu dhammayn wixii ay sameeyaan suubilaanahay waxay ahayd maxay ahayd waxaasi way is-aqbaleen dadkaasi inay mas'uuliyadda ku kala sarreeyaan inay xilka ku kala sarreeyaan inay baahida ku kala sarreeyaan kuna kala hooseeyaan inay sharciga ku wada hoos noolaadaan ayay aqbaleen oo ay degsadaan wixii ay ku wada dhaqankii iyo wixii ay ku wada noolaan lahaayeen inta maanta aan la harjadaynahay waa intaas marka inaan dawlad Soomaaliyeed helno dawlad Soomaaliyeedna si aan helno waa inaan siyaasadda ka heshiinaa siyaasadda hebelaa madax noqonaya bes ma aha hebelaa madax noqonayo oo darajada noocaasa qaadanayo iyo hebelaa qaadanaya keliya ma aha siyaasaddu waa inaan dhiiranaa oo uu iga baxaa shakiga adiga aan kaa qabo inaad idibindaabiyeynayso shakiga adiga aan kaa qabo inaad idibindaabiyeynayso waa inuu iga baxaa adigana waa inaad iga saartaa oo aad u taagnaataa sidii aan macaamilayna aanu shaki ii geli lahayn oo aan u shakiyi lahayn oo aad muxuu ahay meel mugdiya wax kula dhuumanin oo dadan anigu shaki ka qaba aadan muxuu ahay meel gaara la gelin waxa laga hadlayaa waa wax naga wada dhexeeya bannaanka miiska la soo saaro oon ka wada hadalno iswarsano oo inaan shakiye haddaad i aragtane aad isoo daba kacda weliba oo tira warbarkaale bal muxuu ahay maxaad ka shakiday laakiin haddii aad dareento ina shaki igalay ee aad tiraahdo war weligiisba wax baa soo cuqdad qabi jirayoo shakilo ah oo maxaanku idhahdaye qaab daran waaye naga daa haddaad tiraahdo meeshaas kuma ekaanayo shakiga aniga igalay leanna aniga dadaan ka tirsanahay dadaan saaxiib la ahay kuwaan qaraabo la ahay kuwaan la noolahay kuwaan madax u ahay mas-uul ah oo ninkii ugu fiicnaay oo jiray aan ahay intaasoo dhan uu gaarayaa shakiga aniga igalay marka intaanu gaarin inaad aniga idaaweyso adigana aan ku daaweeyo sidaasuu ku roon yahay lagu kala shaki baxo khilaafka ama kala duwanaanshuhu sidiisaba ma xuma lianna sunnada noloshay ka mid tahay isku si maba ihinbo equal ma ahin ma sinin xagga caqliga kama sinin xagga cilmiga kama sinin xagga maxaanku odahay garashada kama sinin xagga xoogga iyo dhinacna kama sinin marka maadaama aan kala duwannahay mucaamalaadkeennana kala duwanaansha way ka soo baxe maadaama aan isku fahmi aan marka laakiin kala duwanaanshaha in laga hadlay u baahan tahay la fariisto waataan sheegnay mushkiladda khilaafku ma aha khilaafka sida loo xalliyo waaye oo sida loo xalliyaahay haddii doontana ummado dhammay laaynaysaa haddii ay doontana ummado dhammay intu isu soo dhaweyso ay saaxiibba ka dhigto walaala ka dhigtay midayso isku meel u jeedi kartaa marka sida loo xallinayo waa marka haddaad aragto nin walaalkaa oo shaki galay marka hore ku dadaal inaanu shaki gelin haddiiba aad aragto inuu shaki galayna sidaad shakiga uga saari lahayd u gunto oo maxaanku idhahdaa u istaag dawladnimadeenna marka maanta intay u baahan tahay waa bisaylka noocaasa inaan la wada nimaado iyo inaan fogaan araggaas yeelanno is-aamino awooddeenna uu ilaahayna siiyey ee khayrka badan yacni markaad noo fiiriso macaayirta ama waxyaabaha lagu mitiriyo ee lagu cabiro nimcooyinka ilaahay bixiyahay
ilaahay kuwa ugu badan uu na siiyey waa midda koowaad ilaahay ummad 100% muslimiin oo naga dhigay waa waxa nimcada ugu fiican dad isku nooc ah noqon Soomaaliya noqon isku dhaqan ah isku hidda ah isku af ah isku magaciisa dhulka meelaha ugu fiican adduunyada oo jirta ilaahay nagu abuuray oo na dajiyay khayraadkiisa iyo mowqaca meesha uu ku yaalahay sida adduunyada muhiim ugu tahay qof walba uu jecel yahay u soo ordayo dadka soo kala ordaya Soomaaliya mid saldhig military inta ka rabaale mid warshada inta ka rabaale mid inta aan batroolka qodale mid inta aan waxeeya leh yani jacayl gooni ah nooma qabaan laakiin fursadaas iyo nimcadaas ilaahayna siiyey ayaa rootiga qallalan oo wataan inay nagula daartaan ay rabaan laakiin haddii rootiga ku daaramaysid andhaan annaguna aan ku daaran weyno jirday laba gamcood wax ku qab waa sax aad iyo aad u mahadsantiin gabdhaheena waa khayr Allah siiyo waa xigmad waaye aan isweeshano aan wada jirno xigmad waaye waxa la isku weesho karo lagu wada jiri karana waa wixii aan sheegaynay oo ahay in maxaan ku iraahdaa la ilaaliyo in la kala irdhoobo la kala cugdad gal marka hadda tiraadid rootiga waraa rooti qalamaad oo taadiga iga joog oo adigana aad kaagi ku daaran weydo ama gacantaadu ay gaaban tahay oo gaarinoodan ku daara karin marka de waxaad noqonaysaa tukihii haruubka caana nasiib uu ku helo waa leeyahay laakiin nasiib uu ku cabo mala la ilan goonka ugu istaagaya waa daadinayaa sidii oo kale sifahaasaad ku sabaabay marka waxaan u baahannahay inaan marka annagu aan is aqbalno dawladnimadeena aan aqbalno dawladnimaduna sida wanaagsan aan ku aqbalno ma aqbal aan ra'yiga dadka qaarkiis ay yiraahdaan dawlad xun dawlad aan ay dhaantaa ma dhaanto ra'yi xigmad sax ma aha laana dawlad xun marka daba dawlad aan u bay ku geyn annaga maxaa dawlad la'aanta na keenay dawlad xun muddadeena la soo joogtay oo ama fiicnado gadaal ka xumaatay yaa dawlad la'aanta na keentay dawlad fiican meesha ka jirto kumanaan sano ayaa dalalka qaarkood aanu dagaal sokeeyana ka dhicin dibna aanu ka dhicin dawladna ka jirtay oo ay mar walba sii horumaraysa xadaar sii noqonaysa marka dawlad xume dawlad la'aan u bay ku geynaysaa dawladda xun u istaag inay toosto ee dawlad fiican noqoto ka shaqee laakiin see yeelaa haddee muxuu ahay dawlad la'aanay dhaantaaye hadhihin ma dhaanto maalinta dambe dawlad la'aanay ku geynaysaa marka dawladdii inaan saxno la talino intii horta kow intii loo dulqaadan karo loo dulqaato annagu dal dimuqraadi ah inaan noqonno oo xukunka la iska badbedelo waa waxa dalkan maanta xalka keliya u furan nin inta soo baxa dalka inuu iska qabsado oo iska haysto oo 30 sano 40 sano 50 sano jooga Soomaalida maanta suurtagalka ma aha sidaas daraadeed dulqaadka waxa kamid ah qof hadii la doorto muddadii la doortay in hadii uu dib badan yahay yani wax qatar oo umada halaagaya aanu wadin muddadii la doortay in la sugo muddadiisa markay dhamaato haduu xumaa soo dooranin mar dambe haduu fiicnaayo loogu bagayna ku cesho oo mar kale ku cesho hadana oo u daa muxuu fursada wanaaga uu muujiyay inuu hor u sii wado oo ka dulqaado laakiin hadii da wax disaster ah oo umada muxuu ahaay dib weyn gelinayo degdeg ah hadii jiraan marka dawladda in la hor istaago liira sidaan ma aha ama sidaan ka roon in la yiraahdo mar walba aad iyo aad ay muhiim u tahay marka annagu isku soo wada duubo xalkeena isfaham siyaasadeed oo aan yeelano oo dawlad aan yeelano dawladdu magaca waa ka dawlad laakiin lakabyo kala duwan oo isdul saaran waay heerka ugu hooseeya hadda dawladda dhexe waa laga soo dhaqaajiyey dawladnimadii waa la soo qaybiyey halkaana la keenay ma aha inay kismaayo ku ekaato waa inay hoos u sii degtaa oo degmada ay tagtaa oo ay ka sii tagtaa oo tuulada ay tagtaa shalay waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan soo booqday oo tagay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedka Jubbaland shalay waxaa la iclaamiyey barnaamijkii
maamulada loogu sameynayay oo dadka deegaanada joogaa ay ku dhisanayeen maamulkooda iyo ciddii ayaga taladooda ahayn lahayd dowladda muxuu ahaay jubbalandna ay fududayn sidii ay u fududayn lahayd deegaanadu inay maamul ay leeyihin council ay leeyihiin maxaan ku idhaha guddoomiye ay leeyihiin maayor ay leeyihiin wixii un dee qaab dhismeedka dowlad dhisida loogu talagalay ou lahaa marka waa sii dagaadegaysaa waa sii soconaysaa aruuf arrintiisa loogama roonaa la yidhi dadka degaan maxay ahayd muxuu ahaaye xadiidkii kale ahaa ahlu maka waa kaa aqoontooda iyo ogaalkooda looma dhaamo yani nabi maxamed alayh salatu salaam ma dhowa marka dadka meel degan danahooda ayaga loogama roono loogama oga maya anaa kuu garanaye sidaa weeye in la yidhaah ma aha war meelaha kale sidaanaa looga dhaqmaa ama sidaanaa ka jirta in la yidhaah oo waayo aragnimada lala wadaago loo sheego oo maxaan ku idhahdaye la kiciyo muxuu ahay ogaalkooda way fiican tahay laakiin haddana waa in fursad la siiyaa maya annaga sidaana noo roon sida ay yidhahdaan loo qaabeeyo lala ogolaado oo lagu kaalmeeyo muxuu ahaay shu-uuntooda sidii ay u hagaagsan lahaayeen marka maamulkii inuu sidaa usii dagaandegayo hoos usii dagaandegayo dowladnimadu halkaa ugu hooseysay kasoo waa midaan lahayn shacabka in ay dowladnimadu u dhowaato xamar mugay ka timiday ee kismaayo timiday waa u soo dhowaatay kismaayo markii ay ka sii tagto ee ay degmooyinka jira maxaanku idhahda dhobley iyo maxaa qooqaani iyo jamaama iyo maxaanku idhahda ay sii gaarto way u sii dhowaatay marka ay ka sii tagto oo waa meesha dowladaha hoose marka ay ka sii tagto oo tuulada intaa la ege inay oday yeelato aniga maalan waxaan ku dhashay oon ku soo koray meel aan degmo ahayn tuuloy ahayd laakiin tuulo weynay ahayd berigaas degmona ma gaarsiisnayn tuulo yarna muxuu ahay waa ka sarraysay maamulay lahayd marka dowladdu ay usoo magacaawdo iyo maayar la doortay lahayd tuuladaas duq magaalo oo la doortay lahayd tuulo weynay ahayd hadda waa maanta degmo aad iyo aad u weyn jalaalaqsiyaa la yihaa berigaas lixdameeyadii degmo ma ahayn degmada buulo burtay ka tirsanayd laakiin tuulo weyn oo markii dambe waxa beel loo bixiyey beel yay ahayd berigaas ma garanayo af soomaaliya wixii loogu bixi lakin berigaa waxa la dhihi jiray delegata la dhihi jiray delegata la dhihi jiray nin dowladdu soo magacaawda ayaa joogay maayarka magaaladana waa la dooran jiray dadkaa dooran jiray si uu magaalada ugu khidmeeyo ugu adeego marka haddii maxaanku raha 60 sano ka hor ku dhowaad aan sidaa ahayn maanta marka meeshiaan rabnaa inaan u noqono laakiin qarniga 21aad la jaan qaadi karto bartamihii qarnigii 20aad ay ahayd wakhtigaas qarniga 21aad nidaam iyo qaab la jaan qaadi karo inaan yeelano oo aan samaysano waaye waxa aan maanta aan muxuu ahay leenahay hala dhiso maamuladii degmooyinka iyo degaanada marka dowladnimada meeshaas inay ka soo bilaabato sidaas mas-uuliyadda u kala sarreeyo dowladda federaalka ee caasimadda joogtahay tuuladaas maayarkeeda dooratay iyo degmadaas counsilkeeda dooratay shu-uuntooda ma garanayso laakiin maamulkaasaa garanayo maamulkaasaa kor usoo gudbinayo wanaagga iyo culaysyada jiro asaa soo gaarsiinaya maxaa degmadii asaa soo gaarsiin degmadii soo gaarsiinaysaa dowlad goboleedkii dowladda dhexe sii gaarsiinaysaa sidaasaa qarankiyo toosan oo isku toosan uu ku imaanaya marka arrintaas dowladnimada waa muhiim marka waxaan ku jirnay arrintii ku saabsanayday macaamilka caalamiga ah ama midka heer goboleed ah baryahan dambe marka dhaqdhaqaaq aad iyo aad u xoog badan ayaa ka jira gobolkan geeska africa ee aan ka tirsannahay gobolkan soomaaliya 4 dal ayay xuduudo la leedahay kenya etoobiya jabuuti iyo dhinaca badda oo aan yaman kala leenahay annagu meel intaan tagnay ma dooran booskaan soomaaliya yidhaaha naloo cabiro halkaasaan degaynaa dadkaasaan deris la noqonaynaa ma dhihin maanta markaad dhul gadanayso boos gadanayso waad fiirinaysaa yaa inta dersigala yaa inta dersigala war lalama dersi karo dadkaani iga wad war inta muxuu aha deris fiicanaad degan masaajidkiina waa ka dhow yahay halkan booskaana waad kala dooranaysaa laakiin dalalka lama kala dooran karo ilaaha kugu uumay in ilaahay halkaa nagu uumana ilahay waa ugu mahad celinaynaayo nimcada iyo barwaaqada aan sheegnay aan qabnaa dalalkaas deriska la-a marka
annagu hal waxoon dooro karnaa jirto inaan macaamil fiican la yeelanno oo aan saaxiib la noqonno oo aan dana naga dhexeeya wadaagno iskaashanno waa dooran karnaa inaan colaadinno oon la dirirno oon dagaal u joog noqonnona waan dooran karnaa laakiin inaan deris ahaanay inaanan ahaanin ma dooran karno labadaasna laba la kala doorta ma aha oo midka wanaagsanaa mar walba la doortaayo oo ah macaamil wanaagsan deris wanaag iskaashi dhibaatooyinka la iska kaashado wanaagga iyo horumarkoo la iska kaashado waxaasoo dhammaan dooran karnaa annaga dalalkaas deriska la ah dalka aan ugu taariikh dheernahay isugu taariikh dheernahay waa etoobiya dalka etoobiya la yihahdo ee deriska annahay boqolaal sano oo taariikh aan leenahay 600-700 oo sano oo taariikh ah ayaa naga dhexayso boqolaalkaas sano taariikhdeedii taariikh inta badan colaad ku salaysanay ahayd taariikh colaad ku salaysan kiniisadaha burburi masaajidda burburi dadka muxuu ahay barakici kuwaan kale inta usii riix maalin walba qolo sii riix qolo kale soo riix taariikh sidaa ku salaysanay ahayd oo boqolaalkaas sano soo jirtay baryaha iska degto baryaha kacdo laakiin inteeda badan taariikhdaasi waxaan isleeyahay anigu waxay ku soo gabagabowday 1990kii ay ku soo gabagabowday xukuumaddii soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliyana waa ku duntay dowladnimada etoobiyana waa ku duntay taariikhdaas soo jireenka ahaydoo boqolaalka sano soo jirtay ka soo kabashadii si kastaba ha ahaatee way naga nasiib bateen oo way soo kabteen waa nugu dheeraatay annaguna alxamdulilah maanta waan soo kabannay waana sii kabanaynaa ayaguna weli kabashadii ku jiraano way sii socdaan maanta marka labada khiyaaro noo furan waxay tahay inaan meesheenna u noqonno oon taariikhdii hakadka intaan ka bixinno aan sii wadno colaaddii iyo ishubayntii iyo muxuu ahay maxaa dumiyey dowladdeenna iyo dowladdoodii adeegii dadka loo qaban lahaa oo dowladdu ay dadka u fulin lahayd wixii ay ugu fulin lahayd oo xoog iyo dhaqaale ahaa yaa waxaan gelinay waxa qarxa iyo waxa la isku dilay iyo dhiigga sida loo daadiyo iyo dadka sida loo laayaan gelinay annaguna waa gelinay iyaguna waa geliyeen maanta marka waxaan u baahannaha waxay tahay waxaasi inaan u soo weecinno tacliinta meeshii boqolkiiba laba iyo bar iyo laba wax ka sii yar iyo bajetka tacliinta iyo bajetka caafimaadka dowladahaas labada dal ay ka ahaan jireen waxaan u baahannahay inaan sida kale oo boqolkiiba 60-70 meelaha ma marka qaarkood 80 oo ay ka ahaan jirtay ciidamadeenna mar walba waa u baahannahay laakiin baahideeda waa inaan define garaynaa inaan kala wareejino oo boqolkiiba 60-70-80 bajetkeenna aan caafimaadka iyo tacliinta iyo biyaha iyo maxaanku raha fayadhowrka iyo horumarinta beeraha iyo horumarinta badda iyo aan u wareejino waayo ummaddu si ay maslaxaddii dowladnimada ay ka shinsanaysay si ay u hesho marka maanta waxaan isleeyahay marka inaan iskaashanno intii aan kari karno iyo intii duruufaha maalintaas jira ay saamaxayaan waa muhiim dalalka deriska nala ah oo dhan annagoo waxayna kala leh kala ilaashanayno isku ixtiraamayno inaan haddana macaamilno macaamilka caalamka uu macaamilo ee nadiifka ay wanaagsan inaan macaamilno waayo maanta duruufaha jira aniga waxaan qabaa waxaan bilaabi karnaa hawshuna bilow iyo hiigsi dheeroo la hiigsanayay leedahay waxaan bilaabi karnaa in maanta wadaxaajoodkeedii iyo wadahadalkeedii iyo wixiidii la bilaabo sidii aan horumar iyo dhaqaale iyo iskaashi iyo wanaag maxaanku ihahday aan u bilaabi lahayn wadahadalkeeda waa bilaabi karnaa waana kusii dhowaan karnaa maalinteedii la bilaabi lahaa wadahadalka noocaasi waa la joogahan isleenahay waxaa maslaxada ay naga leeyihiinna aan ka dhegaysanno midda aan ka leenahayna ay naga dhegaystaan meel dhexo oo noo wada danaynaysana aan isugu nimaado oo dhinaca dhaqaalaha waxaan isleeyahay maalinteedii waa la joogaa laakiin waxaan isleeyahay dhinaca siyaasadda maalinteedii lama joogo ayada lafsadeeda waa un arrin loo baahan yahay oo laga yaabo maalin maalmaha ka mida in la gaaro laakiin maanta maalinteedii ma ahan aan isu soo gaarno meel aan siyaasadda ka wada hadli karno iyo xukunka iyo talada iyo aan isla soo gaarno maanta islama gaarsiisanine marka waxaan qabaa aniga arrintaas inay aad noogu kala caddaato oo dowladaha aan deriska nahay dhammaantood kenya inta deris nagala ah suuqa maxaanku idhaha bariga africa suuq la yihaaho weyn oo suuq wanaagsan oo dhaqaalo weyn iyo maxaanku idhaha wax badan leh ay ka mid tahay
waa noo furan yahay ka mid aan noqon karnaa mid kale oo dhinaca kale u jeedo oo kuwa aan suuqa lahayn sida annagoo kale oo Ethiopia iyo Djibouti iyo Eritrea iyo Sudan iyo ay ka mid yihiinaan suuq cusub la abaabulan karnaa laakiin cawlamada ama muxuu ahay carra eedegeynta maanta adduunyada ka jirtaay banaankan ka taagnaanaya anigu jasiirad yar oo badda badweynta dhexdeeda ku taalaan ahaanaya waxna la igu darsan maayo anna waxba ku darsan maayo cid taasi qarnigeedii ahdigeedii waa la soo dhaafay bas laakiin waxaan u madax banaanahay cidda aan wax ku darsanayno iyo sida aan ugu darsanayno taasaan u madax banaanahay inaan annaga Soomaalida intaan ka tashano markaan tashano wax meel dhigano dadka kalena aan talada iyo wax nagala dhaxay aan wadaagno marka gobolkan aniga sidaasaan aragtideyda iyo way aragnimadeeda yarta aan qala ay tahay waana wax laga shaqeyn karo wanaaguna uu ku jiro wixii aan wada xaajood iyo isla wanaag aan maanta ku garan weyno inaan dib isaga dhigno dhaano waayo kala aan u nimaado haddii aan isla aqbali weynana adduunyadu waxay leedahay tandiim caalami ah oo maxaan ku yiraahdaa loo gar dhigtay leedahay meelahaasaan isla aadaynaa markii aan aragno inaan meelaha qaarkood aanan isku qadarinayn ama aanan iska sugayn marka taasina sidaasaan ka dhahaya qodobkii ugu dambeeyay rabo inuu kusoo gabagabeeyo waxa waaye horumarka siyaasadda qaranka uu samaynayaa maalin walba meelay soo mareysay carta 2000 laga soo bilaabo ilaa maanta safarka dawladnimadu maalinba meel uu soo maray ilaa dawladdu ku meel gaar oo xiga midaan ku meel gaar ahayn federalismku ilaa xad dhaqan gala ilaa midda maanta taagano dastuurkii dib u habeyntiisii iyo shuruucdii dhinaca dhameystirkoodii iyo doorasho cusub oo loo dhaqaaqo safarkaasi cartu ka soo bilowday in Bagathi uu ku soo xijiyay Djibouti uu ku noqday waa ka yimiday Muqdisho ayuu ka dhacay oo ku meel gaarnimadii lagu soo gabagabeeyay aniga 2012 Muqdisho la igu doortay baarlamaanka Muqdisho lagu dhisay annaga waxaan ka shaqeynay bal meeshaas in hal talaabo kale aan ku sii darno oo Muqdisho intaan ka bixino 6 meelood oo kale oo dalka ka tirsan doorashooyinka inay ka dhacaan haddii odayaasheenii sharafta badnaayay shalay aan xulanay ay noo qaadeen mas'uuliyadda ah inay noo soo xulaan baarlamaankii oo ku salaysan reero annagu waxaan talaab hor ugu qaadnay aan dhahnay war reerkii wali ha joogto laakiin reerka dhexdiisa fursad aan siina reerka dhexdiisa ha tartamo meeshii reerka hal qof laga soo qaban lahaa aan fursad siino reerka dhexdiisa inuu tartamo oo Cali iyo Caashe iyo Jaamac inay tartamaan oo markaa qofka ka soo baxay qof reerkii ku soo dhex tartamay uu noqdo meeshii 135 baarlamaanka ay soo dhisayeen hal la codeeyo 14,000 iyo dhowr boqol oo qof ha codeeyaan maanta waxaana laga rabaa 6 meelood ee 2016 doorashada ay ka dhacday 5 dawlad goboleed iyo caasimadda maanta in ka badan oo deegaanada inay doorashada ka dhacdaan rabnaa oo hore aan u wad haddii 14,000 shalay ay ka qayb gashayna maanta waxaan rabnaa boqolaal ama malaayiin hadba intaan gaari karno kun oo maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya inay ka qayb gasho waxaan u soconnaa ee aan dadaalkeeda ku jirnaa waa ka si ka loo gaaro oo meeshii hore aan uga durugno shalay waxaan dhahnay qabiilka dhexdiisa lagu tartamo maanta waxaan leenahay xisbiyada siyaasadeed ee shuruucdoodii iyo nidaamkoodii soo dhamaaday ee uu socdo hadda hirgelintoodii ha hirgalaano oo dadku ajanda siyaasadeed oo dad Soomaaliyeed isku tagay isku ra'yi noqday ay wataan tartanka lagu galo waa laga yaabaa xogaa dadka qaarkiis wali dood ay qabaan ah lama gaarin wali meeshii qabiilka 100% aan ka guuri lahayn laakiin reer hebel soo tartamay shalay joogtay maanta reer hebel soo tartamay joogtay in dad Soomaali degma Kismaayo laga codeynaya maanta taaganta Kismaayana reer kasta Soomaaliyeed taagan marka waa talaabo kale oo hore loogu sii qaaday tartiib inaan uga durugno oo aan ka sii guurnay tagay qabiilka meeshii maanta ay suurtagal ka tahay oo 5 iyo 6 iyo 10 iyo ka badan in ay codeynta ka dhacdo oo nidaamka doorashada uu ka dhaco oo sidaas dawladnimada dambe ay ku hana qaado nidaamkaas marka udub dhaxaad waxa uu ah xisbiye siyaasadeed waxa kale oo wadna marka oo reer Kismaayo iyo reer Jubbaland aan anagu u keenay
xisbiyadaas sharciyeysan iyo kuwa sharciyoobi doona soo socda ka mid ah oo la yidhaha midowda nabadda iyo horumarka. xisbiga midowda nabadda iyo horumarka waa xisbi Soomaaliyeed. waxaan rabnaa xisbi reereed maaha, xisbi Soomaali oo dhan ay leedahay, xisbi dadka isla joogahay ay iskula joogaan fikir wanaagsan oo ay isla garteen, oo ay ka doodeen, oo ay maalin walba wax ku sii qurxiyeen. xisbi ku salaysan waay xisbi Soomaaliyeed oo nidaamka Soomaalida iyo waxa Soomaalida ka wada dhaxeeya qiyamka uu ilaalinaya ay yihiin waxa Soomaalinimada dadka Soomaalida ka dhaxeeya ee hadda aan sheegay. laba tiir oo adag ayaa dadka Soomaalida ka dhaxeeya. waxa qabiilka kama dhaxeeyo, isku qabiil maahay. kuwa aniga heebta kore isla nahay hoos isku sii hayb maahay, waa si kala tagnaa. marka qabiilku wuxuu u samaysan yahay wax si kala qaybinayo, wax soo ururin uma samaysan. meel uu ku fiican yahay, dhaqan uu ku fiican yahay, meel uu leeyahay, meel diintuba ay tilmaantayna waa leeyahay. laakiin siyaasadda kuma fiicna. siyaasadda waxaa loo adeegsadaa waa inuu noqdaa aaliyad dadka isku keenaysa. waxay isugu keenaysa labada tiir marka oo siyaasadda Soomaaliya ninkii caqli leh iyo ninkii turid laba uu tahay inuu marsiyo. waxay tahay dadkan Soomaaliyeed waxay ka midaysan yihiin diinta Islaamka. waa dad 100% muslimiin ah, waa dad 100% sunniyiin ah islaamka kasii kadib, waa dad 100% weliba shaaficiyiin ah oo hal madhab haddana kusii midaysanoo aan aad ugu qaybsanayn madaahibta maanta jirta lafteeda. waxyaabo waayahan dambe muxuu ahaay na soo dhex galgalay oo muxuu ahaay iska barakaysan waa jiraan, laakiin dadkaani waa dad sunniyiin oo shaaficiyiin ah, waa la garanaya. waa dadka Soomaaliyeed kan geeskaa jira iyo kan 2,000 kilomitr meel u jirta jira waxa ay wada leeyihiin oo salaadii waa la aadama masaajidkan aadiya ama aan tukana law ay wada leeyihiin. waa qodobka labaad oo ay wada leeyihiin waa Soomaalinimada oo hormuud u yahay afka Soomaaliga. dadkaani afka Soomaaliga ku wada hadlaan, Soomaalinimay leeyihiin, lahjada iyo magaciisi waxaas waa halkeed, laakiin waa af Soomaali. af Soomaaligu waa maay iyo maxaatir waa la yiraahdaa. afkeenu maay iyo maxaatir uu kala yahay lama yiraahdo. marka af Soomaaliyan ka midaysannahay aan leenahay. af Soomaaligaasi wuxuu dugsan yahay marka waxa la yiraahdaa wadaniyadda, nationalism afka qalaad waxa lagu yiraahdaa yuu dugsan yahay. waxaa isticmaalay ku liibaanay ku soo guulaystay wiilashii dhalinyarada ahaa 15 ay sheegaya SYL. Soomaaliyaan ahay waa lagu meel maray waaga in laga xishooda reer hebelaan ahay yaa la gaaray. qof marti oo masaafir oo socdo markuu magaalada soo galo inuu yiraahdo war xafiiska laagada dirsoonka laagada xagee ku yaala hal igeeyo ee magaalada yaa reer hebel oo degan aanu dhihin yaa la gaaray waagaas. Soomaalinimadu kor ayay u kacday. maantana way mudan tahay in maxaan ku yiraahdaa sidaas oo kale. midda kalena muxuu ahay ayadana tiirka kale oo ku midaysan oo diinta Islaamka ana waan ogeynay barigi dhaweeday midowga maxaakiimta Islaamiga ay sameysmeen geeska gees Soomaaliya. dad Soomaaliyeed oo dhibsanayay oo cabsanayay waa jireen oo dadka wada hoggaanka ka dhex muuqda reere iyo wax u arkayay, laakiin dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad waa u soo istaageen ayagoo aan ahayn qofka ma ahayn waxa ay fiirinayeen. waxay fiirinayeen diinta Islaamka iyo shariicada Islaamka fiirinayeen oo la weynaa oo muhiim u ah oo ay lahaayeen lahaansho ay tirsanayeen. marka maantana siyaasadda Soomaaliya waa in ay waji cad iyo fikir cad ay ka qabto qofka siyaasiga ah iyo qofka hoggaanka u socda iyo qofka dalka inuu hogaamiyo dadka inuu hogaamiyo rabaa. labadaa tiir ee waaweyn ummaddu ay leedahay waa inay u cad yihiin qiyamka siyaasiga oo wadaane waa inay labadaasi ay sal iyo baar ku leeyihiin. xisbiga midowga nabadda iyo horumarka waa xisbi Soomaaliyeed oo sidaas ah oo qiyamkaas leh, Soomaalinimo leh, dadka Soomaalida inay Soomaali yihiin, dalkan inay wada leeyihiin, degaanada inay kala degan yihiin, taladana ay dagaamaysan tahay. waaye ilaahay idankiis mar dhow waxaan rabnaa in halkan laga furo xafiiskiisii lagana loo jikare. laakiin inta ra'yigaas uu la quman yahay ee degaankan deganaa xisbigaas Soomaali kastuu u furan yahay, qof uu ka reeban yahay ma jirto. laakiin inta fikirkaasi uu qabo xisbiga inta akhrisa ku qanacda
ayaa xisbiga ku biiraysa intaasaa inta tandiimkooda iyo nidaamkooda u gaarka oo xisbigii ah halkan ka samaysanayso loo soo magacaabi maayo loo soo dhisi maayo ayagaa dhisanaya intay isku yimaadaan hadba intay tiro la eg yihiin cod la egna way yeelanayaan hadba intay tiro la eg yihiin cod la eg oo ay talada qarankana ku yeelanayaan talada degaankana ku yeelanayaan way yeelanayaan macnaha xisbigana xisbinimaduna waa sidaa dadka hadba siday isula jiraan ay u abaabulan yihiin ayaa muhiim ah mar kale dadka reer Kismaayo iyo guud ahaan dadka Jubbaland waxaan ka codsanaynaa in ay xisbigaas nagala mid noqdaan nagu garab istaagaan iska kaashano Soomaaliya iyo Soomaalinimo annagoo adeegsanayno inaan karaamadii iyo sharaftii iyo haybadii dalkan u lahay iyo nimcada Ilaahay uu na siiyay intaan ku xamdino inaan maxaa ummadeennana aan uga faa'iideyno haddii alla yidhaah taasna waa rasaalada kama dambaysta fariinta kama dambaysta aan rabo dadka inuu jeedo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan idinku dheereeyey hadalka intaasaan rabaa hadalkayga inuu kusoo gunaanado waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaamaya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wasiirada iyo baarlamaanka waxaan sigaa soo dhaweynayaa madaxweynihii hore saaxiibkay Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii ay saaxiibtinimo iyo inaga dhaxayso waqti dheer waxaan salaamayaa dhammaan ardayda maamulada jaamacadaha aqoon-yahamiinta xildhibaanada kala duwan maxaan ku dhahdaa ayaan salaamayaa aadaan ku celiyo Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga la socdana waan soo dhaweynayaa waan idin salaamayaa runtii waxay ii tahay farxad anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Kismaayo in aan soo horstaago dadkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed way u baahan tahay marar fara badan in ay laga wada hadlo mustaqbalka iyo ummadda Soomaaliyeed ummadnimadii sida aynu maxaa ku u soo cishan lahayn aynu waxa inoo jira u sii ilaashan lahayn aynu u sii horumarsan lahayn waa wax loo baahan yahay madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii hore Xasan Sheekh inuu isugu keen yeedho oo uu ku dhiso maxaa ku dhahdaa booqashadiisa aqoon-yahamiinta iyo ardayda soo koreysana waxay ku tusinaysaa hadee ruuxu waxa uu gudihiisa ku jira buu banaankan soo dhigayaa aqoontu qiimaha ay leedahay ayay ku tusinaysaa in uu u fahansan yahay anigu madaxda hor fadhidi iyo kuwa maqli doonaba waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed burbur dheer kadib soo kabasho ayaa jirta laakiin soo kabashadaasi dadku way fiirinayaan waxa ay ku xulanayaan ama ay ku rabaan waxa weeyaan waa daacadnimo mistaaqiyadda inta in la egbu ruuxani uu waxa uu sheeganayo iyo waxa uu ka hadlayo mistaaqiyadiisu iyo maxaan ku dhahdaa wadaniyadiisa iyo ummad jacaylkiisa inta in la gaarsiisanta waana sida loo baahan yahay oo in lagu xusho inaan qabiil ayna wax ku xulanina aynu wax ku xulanno aynu waxa soo socdo oo dhan aynu ku dul dhisno aragti fog oo ku dhisan aqoon iyo macrifo aqoon ku dhisan aragti fog oo ummadnimo ah aragtidaasi waa waxa inaga dhaxeeya oo ah madaxweynuhu uu aad ugu dheeraaday oo ah ummad haddaynu nahay Soomaaliyeed waxa inaga dhaxeeya waa dhaqan waa Soomaalinimo waa islaamnimo wax ayna ummadaha kale oo dhan lahayn baynu leenahay inaga dhaxeeya waxa inaga dhaxeeyana ilaashimo u baahan yahay waxaana ilaalin kara hoggaan daacada iyo dad daacad ah waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed in ay ka gudbaan wax la yiraahdo cudurkan qabiilka u gudbaan ummadnimo waxa ay qayrkood kaga hadheen haddana ay ku soo kaban karaan waxa weeye waa ummadnimo
madaxweynihii iyo maamulkii iyo wasiirada ama heer gobol ha ahaado ama heer federaal ha ahaadee waxay u baahan yihiin in ay daacad noqdaan horta marka horeysa inay aragti sax ah ay la yimaadiin aragtidaas saxdaana inay bulshada iyo ummadooda ka qaybgeliyaan oo ummaddu ku qanacdo ayaa loo baahan yahay ummaddu hadday ku qanacdo aragtidaas inay ummaddu aragtidaas ugu tagtaa loo baahan yahay ay ka qayb gasho danaheeda sida ay u turjumayso iyo danaha ummadnimada sida maxaanku dhahdaa camil looga dhigayo waa in ay ummaddaasi ay maxaanku ka wada tashato si looga gudbo mashaakilada aynu haysta waa inaynu ogaano maxaynu haysanaa awooddeenna maxay tahay xaggeennu ku tabardaranahay maxaa ducfigeenna haysta muxuu yahay meeshaan higsanayno si aan u gaadhno waa inay hoggaanku waa inuu bulshada maxaanku dha arrinta ka dhaadhiciyo hal arrin waan dareemayaa ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay aragtida ay qaadanayso ama ay wax ku dhisanayso in ay ku dhisan tahay aqoon dadka soomaaliyeed aqoontiisuna aad buu u liidataa inteen leg baynu maxaanku dhahdaa ay diyaar u tahay hoggaaminteenu in ay ku bixiso inay dhisto aqoon cilmi baadhis horumar aqooneed inteen leg bay diyaar u tahay da'yarta maxaanku dhaa maanta u hanqaltaagaysa inay waxbarato jaaniska ay heli karaan iyo qualitiga waxbarashadooda loo dhisayo inta in lagu gaarhsan yahay aan rabaa inaan ku baraarujiyo hoggaanka in ay aragtidaa saxda ah qaataan waxa aan rabaa in aan ku baraarujiyo bulshada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ummadnimo waxa noo dhaama ma jiro haddaynu ummadnimo weyno haddaynu isku xilkeenna weyno haddii aynu dhaqankeenna sal uga dhigin waxa aynu maxaanku dhaa dhaqanka aan sheegayo midkiina kala geen maya waa midka isu keenaya oo ugu horeeya diinta islaamka dhaqanka soomaali ay leedahay waa diinta iyo asal u ah dastuur kastaynu qoranaynana sidaasa asal u ah laakiin markii ay noqoto in camali laga dhigo waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kala soo baxaan waa 100% muslim baan nahay laakiin wax fara badan baa inaga naaqusa soomaalinimada iyo maxaanku dhahdaa labada faktor ee madaxweynuhu uu sheegay oo ah soomaalinimada iyo diinta aynu haysano soomaalinimada ay maxaanku dhaa ka turjumayso luqadeen waa in ay wax ay noogu dhisan yihiin waa inaynu ilaalino aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in maxaanku dhahdaa madaxweynaha inaan mar kale soo dhaweeyo aad baad u mahadsantihiin dowladda Jubbaland mudanayaasha labada aqal iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale madaxda labada jaamacadood ardayda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaamta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan anoo ku hadlayo afka jaamacadda Jubba aan si diiran oo kalsooni iyo jacayl ugu dhahay u soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee martan ah madaxweyne xasan madaxweyne soo dhawo inta ka gadaal waxaan rabaa sidoo kale inaan la wadaaga farxaddayda maanta fursaddan qaaliga ah aan ku hortaagnahay dhammaan mas'uuliyiintii reer Jubbaland in la wadaago anigoo u matalhaya shakhsi walba oo jaamacaddayda ka socda oo halka fadhiyo in la wadaagaya farxaddaas waxaan rabaa madaxweyne sidoo kale kolley magaca aanu ku bixinay waxaa ka mid haddaan reer Jubbaland xasan nabadeeye xasan nabadeeye madaxweyne
ما شاء الله هذه هذه ولا شيء هذه بيقول مع سنتهاي حقيقة وعرب وحيرنا أن تعبت ضد كان وحوجا ما ضد بيرن أو معها إسجعيلكي يسفهنكي يسحقلكي وبسلمان ساعتها أنت أنا هذا ماشي فريدة واحد لقى هذا يا أوركا من لماذا يفرمركا وماذا الصوماليات سيدك الوسود وإن هذا نهي جامعة الجبة يدا ما أنا نشوف الأم هذا نفع هذا المسجد يرين أيوه لكن فكر كيجا يترى يرى قدر سنة هدول هذا وحاويا مسؤولين تجود الصوماليات فرين تأمر بيوحاوي إن هلنا مواطنين صحة أنه جامن كرا مواطنين صحة أو كترجم كرا فكرك يباهدا دنتا دينتا يدلك يأمدبا أنت هو وحنا نقول بعناه هدان هاي شعب يهدان هاي أقوم يهنيبا أنه نقوم جرتو وحيابا سياسيين تكهلا يعني هدو قبيل جرو هدو إسناعيب جرو هدو إستير جرو نقوم جرو لكن كلية وحنا نجمعان أورادين إننا هجامين داعدة أو هجامية كلية أمبا نجمعان أورجينا إن شاء الله أنت أصلا وادر دارن كيجا وأنا وقتك عريري وأسوقه بهيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتك عريري madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan xasan sheekh madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland xildhibaanada labada aqal ee heer federaal wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland aqoon-yahanada gabdho iyo wiilalba leh culimada bahda saxaafadda dhammaantiin salaamullaahi calaykum salaanka bacdi halkan anay hadal igama furna waxay tahay inaan kelmadda maanta waxa inoo leh madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka mudane xildhibaan xasan oo aan rajaynayno maanta inuu afkaarta uu xambaarsan yahay uu la wadaago aqoon-yahanka Jubbaland iyaguna ay markaas wixii ay fikir iyo su'aal ka qabaan ay weydiiyaan sidaa darteed waxaan si ay inoogu fududaato waqtiga oo kulul darteed aan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane maxamuud sayid aadan si uu inoogu soo dhaweeyo madaxweynihii hore ahna xildhibaan dowladda federaalka mudane madaxweyne soo dhawow آمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان مسؤولين تا هل كان فردية أنا وأنا كلا صارين ضمان مسؤولين تا أو رأي مدحويني هراء يو مدحوين كحجين كا ضمان مسؤولين تا كلا وسيرة حلوانا السوجرة waxaan leeyahay soo dhawaada si gaar ah haddana waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada tacliinta iyo idaha sare oo si gaar ah kulankan u soo abaabushay madaxda martida ah oo maaragtay wafdiga hogaaminaya madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga la socda waxaan leenahay soo dhawaada anigoo ka mid ah jaamacadaha maaragtay halkan anagoo maanta ka mid jaamacadda Daha oo ka mid ah jaamacadaha maanta kulankan fadhiya kulanka aqoon-yahanada oo maaragtay maanta marti ku yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud jaamacadda Jubba marka waa soo dhaweynaysaa madaxweynaha iyo wafdiga la socdo waxayna maaragtay jaamacadda aad iyo aad u danaynaysaa uguna dhiirigelinaysaa madaxda inay xiriir dhow la sameeyaan aqoon-yahanada maxaa yeelay jaamacadaha iyo maaragtay goobaha waxbarasho waa kuwa soo saara dadka idin la shaqeeya ama waa idinka maaragtay idin soo saaray marka sidaa darteed waa soo dhaweynaynaa kulankan mas'uuliyiintana waxaan ka codsanaynaa inay sidaan oo kale ihtimaam siiyaan aqoon-yahanada sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa madaxda inay maaragtay hal arrin oo waxaa jirta aqoon-yahanada oo dhan ay ku soo celiyeen oo aan ka simannahay taasoo ah midda maanta Soomaaliya u baahan tahay waa in daacad laga ahaado hoggaanka hoggaan daacad ah ayaad maanta moodaa dadkii Soomaaliyeed inay nabad diyaar u yihiin inay bislaadeen laakiin halka la soo fiirinayo waxa waaye hoggaan daacad ah marka taas si gaar ah ayaan madaxda ugu dhiirigelinaynaa soo dhaweynta kadib sidoo kale dad fara badan ayaa halkan fadhiya
oo aqoon-yahano u badan sidoo kale ururada haweenkana waa fadhiyaan ardayda saxaafadda iyo dadweyne soomaaliyeed oo badan oo dabcan waxa wax loo soo dhisaayo waa shacabka waay dadka laftirkooda waxaan dhihi lahaa dadka mas-uuliyiinta ah waa inaan la xisaabtano arrinta soomaalida ay maaragtay aad ugu baraarugsaneen taas waaye dadka mas-uuliyiinta ah oo aan dirsanay waxaa wanaagsan inaan dib ugu laabanno si ay wax u wadaan ayaga laftirkooda danaa ugu jirto in la dhiirigeliyo oo lala xisaabtamo marka dawlad waxay ahaan jirtay sideedaba madaxda doorkooda wuxuu ahaa inay shacabka u adeegaan shacabka inay u khidmeeyaan shacabkana waxaa laga rabaa inay aad iyo aad ula xisaabtamaan mas-uuliyiinta madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud waxyaabaha lagu xasuusta waxyaaba badanaa la sheegay ani si gaara waxaan ugu sii xasuustaa waxaa la hirgeliyey xilligiisii barnaamijka go to school ama iskuullada aada barnaamijkaas oo runtii annaga waxbarashada aad iyo aad gobolkan ilaa 100 macallin baan filayaa in maaragtay la shaqaaleeyey oo wasaaradda waxbarashada xilligaas ay shaqaaleysay marka waxaan rabnaa barnaamijyadaas oo kale maadaama qolo walba waxbay danaysaa qolooyinkeenna waxbarashada waxaa madaxda aad iyo aad barnaamijyada aad noo taabanaya waa barnaamijyada waxbarashada waaye marka madaxweynaha go to school waa ku xasuusanaa waxaan rajaynaynaa haddana xisbiga cusub oo madaxweynaha noo sheegay inuu aasaasay in udub dhaxaad looga dhigo aqoon-yahanada inuu waxa loo dhigo sidoo kale waxaan sheegaynaa sidoo kale maadaama madaxdeena inoo joogto bilmunaasaba jaamacadaha markii laga soo qalin jabiyo mushkiladana haysata waxay noqonaysaa dadkii soo qalin jabiyey waxay rabaan shaqo waadna dareemaysaan maanta miisaanada wax lagu miisaamo ee dalka ka jira marka waxaan aad uga rajaynaynaa xisbiga cusub madaxdii hore iyo madaxda haddaba ah in aqoonta wax qiimo ah ma laha haddii qofka natiijada uu gaaray aysan macno u samaynin annaga marka waxaan wax ku nahay idinka madaxda marka waxaan ka rajaynaynaa dadkan goobaha waxbarashada ku xaraysan ee sanad walba soo qalin jabiya in loo raadiyo fursado shaqo oo maaragtay muhiim ah taasoo ay qusayso hoggaankii hore iyo midka hadda joogo sidoo kale waxaan rabnaa waxaa jira wax la yidhaahda albuna taxtiya ama dhismo hoosaad madaxdoo dhanna waxaan ka codsanaynaa in arrimaha kore keliya aan xoogga la saarine hoos loo daadego saan oo kale loo yeero aqoon-yahanada goobaha waxbarashada lala socdo ugu dambayntii wakhtigoo yar awgiis waxaan leeyahay madaxweynaha soo dhawow mas-uuliyiinta kalena way ku mahadsan yihiin wafdiga madaxweynaha la socdo iyo dhammaan dadkan halka kala duwan ee fadhiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda jaamacadaha way mahadsan yihiin waxaan ka salaamayaa dhammaan martishaafta ka soo qayb gashay xalfadan quruxda badan isugu jiraan madaxweynihii hore mudane professor xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo ka mid ah xildhibaanada labada aqal waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo golaha wasiirada Jubbaland waxaa kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan madaxda maamulayaasha jaamacadaha ardayda halkan joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u maleeyaa halkan rag badan soo odayaal hore ay soo istaageen meeshan hadal ima laabna aniga dabcan waxaan dhaho laakiin anoo ka socdo jaamacadda Balasma University dhammaan ardayda waxaan halkan aan leenahay madaxweyne ku soo dhawow waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mutaqaana kugu soo dhaweeno goobtan tan labaad waxaan aaminsanahay haddaan ahay bahda waxbarashada sidaan ognahay mudane xasan maxamuud waa marka la fiiriyo waxa waa xukuumad professor waa macallin jaamacadeed marka aad wixii qiimo ugu leenahay marka in bahda waxbarashada maanta oo barooti koowaad oo siiyo qiimeynta koowaad waa siisid marka waxaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay mudane xasan maxamuud qiimeyntaas siisay jaamacadaha iyo bahda waxbarashada run ahaantii waxaan ognahay waxbarashadu waa shayga waa wax qiimo badan haddii bulshada waxay baranin ama wax la barinin waxba ma ahan ummad kasta waxay ku tahay wixii qofta dadku waxbarashadii barteen iyo qof kasta wuxuu barto wax ku yahay marka waxaan leenahay mudane xasan maxamuud aad baan u faraxsanahay bandhigaada noo soo bandhigtay iyo mutaqaanaa xisbigaada haddaan nahay bahda aqoon-yahanada ama jaamacadaha ama bahda waxbarashada maadaama hal mid aan ka rabnaa waxaan ka rabnaa waxaa waaye
in mataqaanaa ay ka muuqato doorkaada. waxaan ognahay xilligaad joogtay madaxweyne ay ahayd waxyaabaha lagu xasuusta waxaa waaye xagga waxbarashada ama bahda waxbarashada door muhiim baa sii jirtay. waan ku faraxsannahay taasne. waxaan kaloo kugu xasuusanaa xilliga aad madaxda ahayd waxaad ahayd oday Soomaaliyeed ahayd oday dhaqameed Soomaaliyeed ahayd marka wax badan baan mataqaanaa wax badan baa ka xasuusanaa de qofku waxa wax laga sheegi karaa markuu wuxuu soo qabto la og yahay. marka waxyaabaha ka xasuusanaa waxyaabaha ka mid ah haddaan ahnay bahda waxbarashadana aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta meesha aan kugu imaano noola hadashid oo wax naga soo jeedisid annagana aqoon ka faa'iidno. marka waqtigiina wuu yar yahay waxaan kusoo gabagabeynaa maadaama kelimadda maanta ku leenahay waxaa waaye inaan madaxweynaheena la hadalno soo dhaweyno. waxaan rajaynaynaa hal mid aan kula dardaarmi lahay hal talaas aan kula dardaarmi lahay waxay tahay maadaama xisbigaada oo hadda mataqaanaa in doorka ugu muhiimsan aad siisid dhalinyarta koodhe iyo dadka wax bartay labadaas mar kastaba waxaan rajaynaynaa inay door muhiim ka ciyaaraan. waayo dhalinyarada waa soorsiga mataqaanaa bulshada waxbarashadana waa isha mataqaanaa bulshada maanta ku nooshahay. marka hadalku waa soo gaabinayaa dardaarankeyga waxaa waaye mudane xashi maxamuud in labadaas mar kastaba buruuda aad siisid. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. horaan waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaheena hore mudane xasan sheekh maxamuud golaha xildhibaanada aqalka sare aqalka hoose federaalka Soomaaliya golaha xildhibaanada Jubbaland golaha wasiirada Jubbaland dhammaan marti sharafka iskugu timid xafladan qaaliga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. salaan kadib runtii farxad ayay tahay anigoo afka warka dhalinyarada Jubbaland ku hadlayo waxaan si farxad leh u soo dhaweynayaa xisbiga iyo madaxweynihii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xisbigiisa midowga nabadda iyo dimuqraadiyadda saan u maraynayo nabadda iyo horumarka waxaan leeyahay soo dhawaaw runtii meeshan aqoonyahan meel uu ka hadlay dee aniga waxba igama banaano weli anigu arday baan ahay aqoonyahan miihi runtii madaxweyne wax badan baan kuga xasuusanaa qosolkaadii baan u xiisnay kuga xasuusanaa waxaan kaloo aad baa umahadsantihiin waxaan kaloo qulubta shacabka Soomaaliyeed marnaba ka baxayna dardaarankaadii ahaa qabya ninkeeda dhammaystiraa waa la barta hadda kulley waa la ogaaday cid walba ay og tahay qabya ninkeeda dhammaystiraa waxaa kaloo la iloobi karin iyadana aan xasuusanaa dalka ninkaad ammaanada u dhiibanaysaan ka fiirsada hubiya haddii shalay nala dhahaya tuubooyin caana ah xaafadaha nigala biyaha niga socdaan tuubooyinka biyaha xaafadaha niga socdaan caana nigula bedelaya hadda biyihii ayaan weynaba absolutely taasi waxay ahayd marka waxaan xasuusan doonaa insha Allah qofku markuu meesha hayo iyo markuu ka tago labadaasba qof waa la ogaadaa waxaan rabaa doorka aan ku soo gabagabeynay waqtiga kulul oogis xisbiga cusub wadid adigu madaxaad u tahay door intee la eg ay uga bannaan tahay dhalinyarada ama ay ku leeyihiin dhalinyarada iyo hablaha Soomaaliyeed maadaama ay bulshada Soomaaliyeed dadka ugu badan aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaanada labada gole wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland iyo dhammaan marti sharafta halka joogta nooc kasta ay ku fadhido kursi kasta ama masab kasta ay ku fadhido waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada ee soo abaabushay barnaamijka qiimaha iyo qaayaha badan leh ee lagu bandhigayo afkaarta ama aqoon-yahanada ay ku soo bandhigayaan waxa uurkooda ku jira banaanka ay ku soo dhigayaan madaxweynahan uu kaga dhageysanayay ama ay isaga jawaabayeen barnaamijyada soo jireenka ah ee aqoon-yahanada waxbarashada ka dhex guuxayay ee uurkooda ku jireen banaanka la soo dhigayaan isaga ay kaga dhageysteen dhalinyarada ay soo saarto ama aqoon-yahanada ay soo saareen. waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow magaaladaadii waaye annaga haddaan ururka haweenka nahay waxyaabaha aan kugu xusuusan waxaa ka mid ah xaafadaadii
waxyaabaha kugu xusuusan waxaa ka mid ah markaan tagno xamar markaan tagno ee loo yeero maamul goboleedyada loo yeero gurigaada wuxuu ahaa guriga ururada bulshada haweenka joogana waxay ahaayeen haweenka bulshada soo dhaweeya si runta ah ee nala jaan qaaday ee 3 sano xilka aan meesha laga hayay markaan ka baxnay bacdulshada markaan ka dhex baxnay waxaan isfahnaa haweenkii banaadir joogay ee macnaha haystay maamul goboleedkii haystay iyo gurigaadii waxay noqdeen haween isla oo ka wada shaqeeya danta Jubbaland ama danta dawlad goboleedka ka wada shaqeeya ayaan aad baad u mahadsantahay waan ku soo dhaweynaynaa xisbigaadana waan soo dhaweynaynaa kulal baan la hadli lahayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa madax mahadsantahay waxaan mar labaad soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaheenii hore wasiirada Jubbaland oo meesha wada jooga dhammaantood magacyadooda iyo maqaamka ku wada fadhiyaan iyo wasaaradaha joogaan xildhibaanada labada gole waxaan rabaa inaan in yar la kaftamo madaxweynaha nugta Suudaaniya waxay tiraahdaa ama kaftan Suudaaniya wuxuu yiraahdaa qaatay waxaan ku sharfayaa inuu madaxweynaha inoo xiro guulaysto madaxweynuhu haddii taladu soo sahmiyey oo la soo safray oo uu noo keenay waxa weeyaan waa Soomaalida 2020 kadib halka ay marayso marka qorshihii baa noola soo bandhigi doonaa aqoon-yahanada waa heli doonaan xafiiskii baa la furi doonaa fikirkeygaan ku darsan doonaa meel baan iskugu tegi doonaa haddii alla idmo sida adinku aad noo gaamisaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa madaxweyne ku soo dhawow saad noogu xirto booqashadaada mahadsan yahay aqoon-yahanadii jaamacadaha iyo hogaamiyihii dhalinyarada iyo gabadhii hogaamiyaha waheeday ururada haweenka Soomaaliyeed ee Kismaayo Jubbaland intaba aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin kelmadihii quruxda badnaa wanaagsanaa ee aad halkan ka jeediseen iyo amaantii iyo qadarintii aad nasiiseen waa ku mahadsantihiin kuwii mudnaado waxaas wanaagsan aad ku tilmaanteen Allah naga dhigo intaa kadib waxaan rabaa dhalinyarada يعني قيبها بالشدة أقويان كاداتي آدان وهذلي لكن ما دام اللي يري ضدك الصوماليات بقول كي بس ديتن أما إن آد وجدوا وادلن يرو يعني تلمانتا دلن يرى أي لين وادلن يرو حزبي جاني مركا هذا دلن يرى ذو أطاي لأن حزبي قدادو ربا عضو ربا رأيو ربا رأينا dadka had intay badan yihiin oo ra'yiga qurxan oo ka soo dhaxbixi og yahay marka waxaan dhalinyarada aynba ma qabnay horta dhalinyarada gaar ahaan waxaan leeyahay soo dhawaada inta kadib xisbiga xubin ka noqo iyo maxaan ku yiraahday golihiisa dhexe gal iyo gudigiisa fulinta ka mid noqo iyo maaha labada qaybood ee bulshada ugu xoog badan ee dhalinyarada ma galiira gabdho iyo wiilba isku jiraan iyo si gaar ah haweenka leena dhalinyarada boqolkiiba 80 waa taa waa la yiraahdaa laakiin haddana haweenku bulshada ragga waa ka badan yihiin la yiraahdo bulshada ayaga u badan marka ما شاء الله weligeen hadaalina waa mahadsantihiin aad iyo aad marka dhalinyarada oo leh muxuu ahay sifahaas iyo gabdhaha oo leh sifahaasba waa udub dhaxaadka muxuu ahay xisbi kasta oo siyaasadeed oo doonaya inuu dalkan raad ku yeesho labada qaybood ee bulshada ee ugu xooga badan ee ugu awooda badan mujtamaca uguna tiro badan waa labada qaybood ee bulshada marka ayagu lama dhihin xubno xisbi ku ekaada maxaan ku rahaa hogaanka xisbiga iyo qaab dhismeedkiisa kala duwan ku beera oo kaliya waxa ay leeyihiin laba qaybood oo muhiim u ah xisbiga oo la garabka dhalinyarada iyo garabka haweenka waa garba sidooda u jira dhismaha xisbiga oo leeyahay oo kalana leh maqaamkaas oo leh marka muhiimad gaar ah ayay noo leeyihiin haweenka iyo dhalinyarada labadaba waana udub dhaxaadka tiirarka ah oo xisbiga uu ku taagnaan doono hadii la yiraahdo marka سيديار جروب وأساس عنا دالينا أنت كده مركلة وحن آد ومهد علينا يا هجانك يا مامولك جبلان يو أقويانين تجبلان قبل يقول البله مركلة مرتجرينتي يسودوينتي يقدرينتي أنت بقى
aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa imaatankan iyo qaabilaadda halkaanna fursaday noo ahayd lafteeda aan muxuu ahay idinkuna dhegaysanno waxa aan qabnana aan idinkugu sheegno oo aan idinla wadaagno marka insha allahu tacaala mixwarkaas xiwaariga ah ama muxuu ahay madashaas wada hadalka ah waan badin doonaa waan sii ballaarin doonaa dalka oo dhanna in sidaas isku maqlo ayaan rabnaa maalin ayaana soo socota insha allah waan dhihi doonno dhallinyarada dalka oo dhan iyo meel hebel kismaayo isugu imaanaya ama baydhabo isugu tegay ama joor isugu tegay maalmaha ka mida inay dhacdo sidoo kale haweenka soomaaliya shirweynihii qaran ee haweenka soomaaliyeed oo haweenkii oo dhan oo dalka meel hebel ay isugu tegayaan ayaduna inay dhacdo marka sidaas in dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isu furmaan oo isaga warqabaan waa himilada aan leenahay waxaan rajaynayn haddii alla yidhaah mar kale waa idin mahad celinayaa aad iyo aad waxaad nagu abuurteen rabitaan ah oo aan jeclaysan doonno oon soo muxuu ahay xusuusan doonno mar walba iyo inaan ku soo noqnoqonno magaalada kismaayo haddii alla yidhaah aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin